kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada durdurka wararka. Xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa dacwad ka dhan ah xukuumadda u gudbiyay maxkamadda dastuuriga, taas oo ka dhan ah xildhibaan Maxamed Abiib oo muddo bil ku dhow u xiran xukuumadda Muuse Biixi uu hogaamiyo. Maxaa laga filan karaa maxkamadda dastuuriga waa maxkamadda sare ee Somaliland? Maxayse tahay tallaabada xigta ay qaadayaan golaha wakiilada haddii maxkamadda ay dhanka xukuumadda markaasi ay u janjeerto? Dhanka kale, gobolka Gado waxaa la soo warinayaa in ciidamada Itoobiya ay markaasi soo geliyeen hub iyo saanad military oo dheeraad ah, dhanka kalena ay wadaan qorshe halis ku ah madax bannaanida Soomaaliya. Haddaba intaanu guda gelin qodobadaas, waxaan ugu horeyn ka codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horreysay na soo booqatay in subscribe-ka taabato, muuqaalkana like aad saartid si dad badan uu u gaaro. Intaa kadib, xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland ayaa waxa ay su'aalo adag hor dhigeen maxkamadda sare ee Somaliland, iyagoo weydiiyey su'aal kaliya laga sugayo haa iyo maya maxkamadda sare. Haddaba su-aashaas oo ku saabsan xariga xildhibaan Maxamed Abiib oo labadii bishan oo maanta 27 marayso laga qafaashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilli uu dalka dib ugu soo laabtay. Haddaba wararka soo taraya ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada golaha wakiilada oo laba fadhi oo ay yeesheen ku diiday baaqii ka soo baxay xeer ilaalinta Somaliland ee ku aadaneyd in xilka xayuubin ay ku sameeyaan ama xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Abiib. Si cadna golaha wakiilada ay dhammaantood isugu raaceen in xildhibaan Maxamed Abiib aysan ka qaadaynin xasaanada, isla markaana uu sii ahaanayo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Somaliland. Balse weli xeer ilaalinta iyo Muuse Biixi waxay ku adkeysanayaan in xildhibaanka xabsi lagu sii hayo, iyadoo haatan wax maxkamada ama garsoor xitaa ehelkiisa aan loo ogolaan in ay u tagaan, taas oo loo arko inay tahay wax baalmarsan shuruucda oo dhan, maadaama isagoo xildhibaan ah oo xasaanad leh ay mamnuuc tahay in la xiro haddii uusan markaa fal dambiyeed gacanta kula jirin la xiray. Sharci jebintaas haddana ay sii xigtay in xildhibaanadii la yiri ninka xasaanada ka qaadana ay iska diideen in weli xabsi lagu sii hayo, haddana aan weli maxkamad la horkeenin, garsoor cadaaladeed uusan arkin. Waxaa loo arkaa inay tahay ku tagrifal awoodeed uu sameeyey taliska Muuse Biixi uu hogaamiyo. Haddaba maxay tahay jawaabta laga filan karo maxkamadda dastuuriga ah waa maxkamadda sare ee Somaliland? Golaha wakiilada su-aasha ay weydiiyeen maxkamadda waxay tahay xariga xildhibaan Maxamed Abiib ma sax baa mise waa khalad? Dastuurka ma ogol yahay mise ma ogola? Inkastoo dadka sharci yaqaanada ah ay qirayaan in maxkamadda jawaabta ay bixin doonto ay noqon karto 99%, xariga xildhibaanka waa sharci darro, maadaama maxkamadda dastuuriga ah iyada ay tahay la rabo inay u dhaxayso hay-adaha waa golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta waa xukuumadda iyo baarlamaanka ay iyada u dhaxayso. Haddii mid ka mid ah uu khaldamo la rabo inay iyada qabato, waxa kaliya ee laga rabo waxa ay tahay in ay dastuurka ilaaliso, waa sida ay qabaan dadka sharci yaqaanada ah. Maadaama hay-adda dastuuriga ay ugu sarreysa Somaliland ay tahayna, waxaa macquul ah ama ay u badan tahay in ay sheegto, inkastoo ay waqti qaadan doonto laftirkeeda, lafaguridda, turxaan bixinta, dib u eegista qodobada ay markaasi soo daliishadeen golaha wakiilada. Waxay u badan tahay ayaa la leeyahay in maxkamadda dastuuriga ah ay sheegto in xariga xildhibaan Maxamed Abiib uu sharci darro yahay.
su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii maxkamadda ugu sarreysay dalka ay tiraahdo xildhibaan maxamed abiib xarigiisa waa sharci darro, maxay tahay tallaabada xigta ee xukuumadda Somaliland ay qaadi doonto ama ay ku sii haysan doonto xildhibaan maxamed abiib? maxayse tahay jawaabta kale ee xildhibaanada golaha wakiiladu ay qaadi doonaan? inkastoo qaar ka mid ah golaha wakiilada ay sheegeen in dacwadda ay ka gudbiyeen xukuumadda, waa golaha fulinta, ay u gudbiyeen maxkamadda sare haddii jawaabta ka soo baxdo ay noqoto in xariga xildhibaan maxamed abiib uu yahay sharci darro, xildhibaankana uu sii xirnaado, waxay sheegeen in taasi ay ka dhigan tahay in Somaliland wax sharci ah uusan ka jirin, wax nidaam ah uusan ka jirin, ay tahay ha iska yaacdo oo nin walba meeshuu wax ka qabsan kara ha ka qabsada inay tahay. waa sida ay qabaan qaar ka mid ah golaha wakiilada. waan arki doonaa, wararkeena xigana waad ku maqli doontaan wixii ka soo kordho dacwadda laga gudbiyey Muuse Biixi ee ku aadan in golaha wakiiladu ay u gudbiyeen maxkamadda dastuuriga ah, waa maxkamadda sare ee Somaliland, haatanna gobolka Gedo. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka Gedo waxay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay la wareegeen, horey ula wareegeen garoomadii diyaaradaha, balse garoonka diyaaradaha ee magaalada Baardheere ayaa waxay ka bilaabeen ayaa la yiri dhisme in ay dhisaan oo dayactir ay ku sameeyaan oo garoomada ay qaybo cusub ku soo daraan, iyagoo uga golle inay halkaas ka soo degsadaan saanad military iyo diyaarado dagaal. Itoobiya waxaa markaasi loo sheegay oo horey dowladda Soomaaliya ay ugu sheegtay in ay isaga baxayaan Soomaaliya bisha December ee sanadkan dhamaadka ah. laakiin Itoobiya taas cagsigeeda weli waxay soo qulqulinaysaa hub iyo rasaas oo xuduudaha ay soo gelinayso Soomaaliya ay markaasi kala wadaagto. wararkii ugu dambeeyay gobolka Gedo waxay sheegayaan in Itoobiya ay keentay halkaasi gaadiid hor leh, rasaas iyo hub culculus, isla markaana garoomadii ay ballaarinayso si ay ugu sahlanaato isticmaalkeeda. waxaana xusid mudan in muddooyinkii u dambeeyay gobolka Gedo ay ka qoranaysay maleeshiya beeleed oo ay ka soo kala qoratay qabaa'ilka dega gobolka Gedo, kuwaas oo ay hubeynayso kana dhaadhicinayso in markaasi danaheeda ay difaacaan. odayaasha dhaqanka ee deegaanada gobolka Gedo ayay meel isugu keeneen, u khudbeeyeen, isla markaana ay ka dhigeen in ay damiin ka yihiin maleeshiyada ay isu keeneen ee Soomaalida ah ay qoreen. odayaashaas ayaa la sheegay ee isu keeneen ee lacagaha ay siiyeen in ay damiin ka noqdeen dhalinyaradaas oo markaasi ay qorteen. maxay tahayse tallaabada laga sugayo dowladda Soomaaliya ee ku aadan gobolka Gedo maadaama uu faraha ka sii baxayo oo Itoobiya waxay doonto ay ka sameysanayso, garoomada ay dhisanayso, hub ku soo daabulayso, ciidamo Soomaaliya qoranayso? adiga muuqaalkan daawanaya, maxay tahay tallaabada habboon ee dowladda Soomaaliya aad kula talin lahayd in ay qaado, ama si guudba dowladda Soomaaliya maxaa tala ah ood u jeedin lahayd oo ku aadan mowqifkeeda Itoobiya? fadlan haddaad muuqaalkan nala dhamaysatay like saar, subscribe kana ha naga ilaabin.